Assalaamu calaykum. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ee ku xiran channelkeena Caafimaad Channel. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo toobiga ah anemia ama dhiig la'aanta. Insha Allah waxaan ka soo qaadan doonaa dhowr shay oo ay ka mid tahay maxaa la yiraahdaa anemia. Anemia qaabkee ayay u dhacdaa? Maxaa sababa anemiyada ama dhiig la'aanta? Maxaa calaamado lagu garan karaa qofka qaba dhiig la'aanta? Sidee looga hortagi karaa dhiig la'aanta? Sidee loo daaweyn karaa dhiig la'aanta? Dhammaan kuwaas iyo kuwo kaloo badan waxaad kaga bogan doontaa fiidiyowgan ee daawasho wacan. Ugu horeyn, waa maxay anemia? Anemia ama dhiig la'aanta waa xaalad ee unugyada cascas ee jirka ee loo yaqaano red blood cell loona soo gaabiyo RBC ay awoodi waayaan oksijiin ku filan inay jirka gaarsiiyaan. Red blood cell ama RBC shaqadeeda waxay tahay oksijiinta inay jirka u qaybiso. Hadday shaqadeeda gabto oo oksijiinta jirka u qaybin weyso, waxaa ku dhici kara qofka anemia. Qaabkaas iyo process-kaas ayay qofka anemiyada ugu dhacdaa. Haddaba, qofka qaba anemia wuxuu dareemaa badanaa daal iyo tabardaro fara badan sababtoo oo ah qofkaas waxay cilad ka jirtaa RBC-gana shaqadiisa waxay ahayd oksijiinta inuu qaado. Haddaba, anemiyada waxay leedahay noocyo badan, nooc walbana wuxuu leeyahay wax gooni ah oo sababa. Haddaba, aan u gudagalna maxaa sababa anemia ama dhiig la'aanta? Hooyooyinka uurka leh waxay u baahan yihiin dhiig badan, waxay u baahan yihiin nafaqo badan. Haddaysan helin dhiig ku filan, waxaa ku dhici karto anemia. Sidoo kale, xilliga caadada ee gabdhaha waxaa jira gabdho qaar oo nafaqo darro hayso ama dhiigga caadada uu zaid uga yimaado. Marka iyagana hadday helin dhiiggii ka baxay wax u bedela booskiisa, waxaa ku dhici karto anemia ama dhiig la'aan. Sidoo kale, dadka faqiirada ah maxaa yeelay ma awoodaan inay isticmaalaan waxyaalo nafaqo leh oo maba haystaan waxa ay ku soo gataan, ayagana way ku dhacdaa anemiyada. Dadkaas way u badan tahay sababta oo ah ma awoodaanba inay cunaan waxyaalihii laga heli lahaa fitamiinada, waxyaalihii laga heli lahaa ironta, maba awoodaanba inay gataan oo maba haystaan. Dadkaasna halis ayay ugu jiraan oo dadka ay ku dhacdo ayay ka mid yihiin. Sidoo kale, hooyada nuujinaysa way ku dhici kartaa sababtoo ah hooyada markay nuujinayso nafaqadeeda oo idil waxaa qaadanaya cunuga. Waxaa jiraan hooyooyin qaar oon waxba cuni karin ama aanba awood u lahayn inay wax gataan. Hooyadaas hadday cunuga nuujiso oo nafaqadeedii ay bixiso, haddana ay helin nafaqadaas ka baxday wax u bedelo, iyadana way ku dhici kartaa anemia. Haddaba, waxaan u gudagalayaa boontiga kale oo ah maxaa calaamado lagu arkaa? Wax walbo calaamad ayay leeyihiin. Haddaba, qofka markaan dhahayno qofkan wuxuu qabaa anemia, maxaa calaamado lagu arki karaa? Calaamada koowaad ee lagu arki karo qofka qaba anemiyada waa daal fara badan, qofka oo dareemo daal aad u fara badan. Calaamada labaad ee uu dareemi karo qofka qaba anemiyada waa qofka inuu dareemo tabardari. Qofka tabardari ama awood la'aan inuu dareemo. Calaamada saddexaad, garaaca wadnihiisa oo zaid noqdo ama uu zaid u garaacmo. Qofka oo wadnihiisa zaid u garaacmo, gaar ahaan hadduu dhaqdhaqaaq sameeyo oo kale, ayadana waa calaamad lagu garan karo qofkaas inuu qabo dhiig la'aan ama anemia. Calaamada afaraad, neefta oo qofka ku adkaata. Qofka oo neefta ay dhibto ama neefta ay ku adkaato waxay calaamad u tahay dhiig la'aanta ama qofka uu dhiigga ku yar yahay. Calaamada shanaad, qofka inuu ka sheegto madax xanuun aad u fara badan, gaar ahaan qofka markuu howl qabto ama uu dhaqdhaqaaq sameeyo. Qofka markuu howl wax yar qabto ama wax yar uu dhaqdhaqaaqo, wuxuu leeyahay madaxa ayaa aad ii xanuunaya ama madax xanuun ayuu ka cabanayaa. Qofkaasna wuxuu calaamad u tahay anemia. Calaamada lixaad ee lagu arki karo qofka qaba dhiig la'aanta ama anemiyada, qofka inuu dareemo wareer, gaar ahaan markuu istaago. Tan waa calaamada ugu badan ee lagu arko qof ay hayso dhiig la'aan. Qofka markuu istaago inuu wareero haddana ay indhaha madoobaadaan. Waa calaamada ugu weyn ee lagu arko qofka marka ay ku yar tahay dhiigga
ama ay qofka haysa anemia. Calaamada 7 maqaarka oo qofka cadaada sida indhihiisa oo qofka cadaan noqdaan ama iyo maqaarkiisa caadiga oo qofka cadaan noqdo waa calaamad lagu garan karo qofka in ay dhiig la'aan hayso. Calaamada 8 lugaha oo xanuun qofka ka qabta marmar waliba xanuun aad u daran. Qofka asoon problem ama dhibaato ka qabin lugaha ama cudurrada lafa xanuunka aan qabin ayaa waxaad arkaysaa lugaha inay xanuunayaan. Laakiin luga xanuunka kaligiis ma dhihi karno qofkaas anemia qabaa. Laakiin calaamadahan aan soo sheegay iyo kuwo kale oo soo wado hadduu qofka isku arko luga xanuunna uu isku arko markaas ayaa la dhihi karaa wuxuu qabaa dhiig la'aan. Laakiin qof aan dhibaato kala qabin oo lugaha kaliya ay xanuunayaan lama dhihi karo dhiig la'aan sababta oo ah calaamada ugu weyn ee dhiig la'aanta luga xanuun ma aha. Sidoo kale qodobka 9 hurdo la'aan qofka oon hurdo ka imaanin. Hadduusan maalintii seexanin habeenkii ma seexan karo. Habeenkii oo idil uu soo jeedaa maalinkii ma seexan karo. Maalintii oo idil uu soo jeedaa habeenkii ma seexan karo. Qofkaas wuxuu in badan ka cabanayaa hurdo la'aan iyo inay hurdo ka imaanaynin. Calaamada 9 calaamada 10 midda 9 waan soo sheegay. Calaamada 10 aragga oo qofka daciifo. Qofka oo araggiisa daciifo sababta oo ah qofka waaba tabar la'aan. wax walba energy ay u baahan yihiin. Xitaa qofka markuu soconayo wuxuu u baahan yahay awood iyo energy uu ku socdo. Jirka qofka wuxuu u baahan yahay energy. Qofkaana tabarti ayaa ku yar. Marka araggiisa wuu daciifayaa. Calaamada ugu dambeyso ee lagu arkayo qof ay haysa dhiig la'aan ama ay dhiigga ku yar yahay waa cidiyihiisa oo god noqdo ama cidiyihiisa oo qaab qaando oo kale u guto. Waa calaamada u dambeyso ee lagu arki karo qof qaba dhiig la'aan ama anemia. Haddaba wax walba waxaa jiro wax halis ugu jiro. Tusaale ahaan hadda anemiyada yaa halis ugu jiro. Yaan dhihi karnaa dadkaas iyo dadkaas waxay halis ugu jiraan inay ku dhacaan anemia. 1 dadka masaakiinta aan waxba haysan ama dadka faqiirada ah sababta oo ah qofka wuxuu u baahan yahay jirkiisa fitamiino badan iyo waxyaalo badan. Sidaas li ajligeed dadkaas ma awoodaan waxyaalahaas wixii ay ku gadan lahaayeen. Marka waa dadka kaalinta koobaad ku jiro ee halista ugu jira anemiyada. Waxaan marar badan aragnaa isbitaalada iyo meelaha inay u badan yihiin dadka danta yar sababta oo ah anemiyada ayaga ayay ku badan tahay oo ma awoodaan wax ay ku quudan lahaayeen waxyaalihii jirkooda dhisi lahaa ama difaacooda kor u qaadi lahaa. Dadka labaad ee halista ugu jiro dhiig la'aanta hooyada dhashooyda ah sababtoo ah mar walba ay hooyadu dhasho waxaa baxaya dhiicaankeedii iyo dhiigeedii iyadana mar walba waxaa ka baxaya nafaqo fara badan. Marka hooyada hadayna helin wax u soo kaba jirkeedii iyadana waxay halis ugu jirtaa inay dhiig la'aan ku dhacdo. Qofka saddexaad ee halista ugu jira dhiig la'aanta ama anemiyada waa ilmaha yaryar. Ilmaha yaryar hadduusan helin cunuga naas nuujin ku filan khaasatan ilmaha markay jiraan 6 bil ugu horeyso noloshooda waxay u baahan yihiin naaska hooyada oo kaliya in la siiyo. Xitaa biyo cad in la siiyo ma aha. Naas nuujin ku filan hadduusan helin qofka wuxuu halis ugu jiraa dhiig la'aan waliba ilmaha yaryarka. Qodobka 4 haweenka qaar bishii dhowr jeer ayay caado ku dhacdaa waxaana sababa arintaas cudurro qaar ayagana halis ay ugu jiraan anemiyada. Sida caadiga haweenka caadada bishii hal mar ay u imaataa laakiin waxaa jira dadka qaar oo cudurro ay ku sababeen inay dhiig badan ka imaadaan bil walba. Ayagana hadday helin nafaqo ay jirkoodii ku soo kabaan waxay halis ugu jiraan dhiig la'aan. Haddaba baaritaano noocee ayaa loo diraa qofka qaba anemiyada. Waxaa ugu caansan 3 baaritaan. Midda koowaad RBC oo loo soo gaabiyey red blood cell. Midda labaad MCV oo laga soo gaabiyey mean corpuscular volume. Midda ugu dambeysana waa MCH oo laga soo gaabiyey mean corpuscular hemoglobin. 3daas shay ayaa ugu muhiimsan ee laga baara. Waxyaalo kale ee laga baaran way jiraan laakiin waa waxyaalo iska yaryar. Haddaba qodobkeeni ugu muhiimsana uguna dambeeyay ayaan soo gaarnay. Sidee loo daaweeyaa anemiyada? 1 waa inuu qofka qaataa iron. Ironka qofka wuxuu u baahan yahay maalintiiba 1
ilmaha yaryar waxay u baahan yihiin maalintii ironta 1 miligram. Ragga waxay u baahan yihiin maalintii 0.5 ilaa iyo 1 miligram. Dumarka uurka leh waxay u baahan yihiin 2.5 miligram ilaa iyo 1.5 miligram. Haddaba ironta qofka caadiga ah waxaa laga rabaa inay u dhaxayso tirada 80 ilaa iyo 120 miligram. Haddaba cuntooyin noocee ah ayaa laga helaa ironta, ama ironta cuntaday ku jirtaa? Cuntada ay ku jirta ironka waxaa ka mid ah koostada, sidoo kale hilibka gaduudan iyo shukulaatada madow. Saddexdaas cunto iyo cuntooyin kaloo badanba waxaa laga helaa iron. Qodobka labaad, qofka qaba dhiig la'aanta wuxuu u baahan yahay inuu qaato cuntooyinka ay ku jiraan vitamin B12. Haddaba vitamin B12 cuntooyinkii ayaa laga helaa. Waxaa laga helaa doorada, waa laga helaa sidoo kale beerka, waxaa kaloo laga helaa ukunta, waxaa kaloo laga helaa malayga, caanaha, waliba caanaha dufantooda ay yar tahay, yogurt iyo jiis. Intaas waxaa laga helaa vitamin B12, wuuna u baahan yahay qofka ay hayso dhiig la'aanta ama anemiyada. Qodobka saddexaad waa inuu qaataa qofka folic acid iyo cuntooyinka laga helo. Qofka ay dhiig la'aanta hayso waxaa loo baahan yahay inuu qaato folic acid. Folic acid asagoo kaniini ugu jiraa. Waxaa kaloo jira cuntooyin dabiici ah oo laga helo. Waxaa ka mid ah qudaarta cagaaran, hilibka, digirta. Sidoo kale folic acid waxaa laga rabaa qofka inuu qaato maalintii 15 miligram. Waan filayaa inaad fahanteen ood ka faa'iideen anemia waxay tahay, maxaa calaamado lagu gartaa, sidee looga hortagaa, yaa halis ugu jiro iyo sidee loo daaweeyaa intaba. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.